xildhibaano saaxiibaday oo maaragtay madal meel meeshaan ku midaysan oo jasiiro fadhiya waxay hayaan malaha maamooyinkii ka oysiiyaan meelaha la joogaan jilina isaga jiraan maanta shaqadiina tahay imaada aragtida aad diidan tihiin fursadan uga faa'iideysta baarlamaanka soo hor istaaga aragtidiina soo gudbista bismillaah alxamdulillaah binastaciinu calaa umuuri dunya wadiin ama bacd ugu horeen waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bahda saxaafadda midda xigta waxaan rabaa inaan halkaan uga faa'iideysto su'aasha aad weydiisay oo xildhibaanada maqan waxaan leeyahay xildhibaanada maqan oo loo soo doortay oo waqtiga iyo juhdiga ku bixiyay in la doorto ee la doortay ilaahay maanta u suuro geliyay ee aan golaha imaanin oo golaha aan ka shaqeynin oo sharciyad aan ka shaqeynin oo aragtidooda aan dhiiban waxaan leeyahay fadlan ilbaxnimo ma ahan inaad shaqadaada ka maqanto in safar ah iska aado inaan meel iska joogto kaaga sii darana waxaa kaloo jiro aan rabaa halkaan inaan uga faa'iideysto xildhibaano saaxiibaday oo maaragtay madal meel meeshaan ku midaysan oo jasiiro fadhiya waxay hayaan malaha maamooyinkii ka oysiiyaan meelaha la joogaan jilina isaga jiraan maanta shaqadiina tahay imaada aragtida aad diidan tihiin fursadan uga faa'iideysta baarlamaanka soo hor istaaga aragtidiina soo gudbista waa arkayseen hebel waa maqan yahay hebel waa maqan yahay in la dhaho jasiirana ay shaah ku cabaan sax maahan wixii leediin doorta maahan canshuurta dalka iyo dadka yaan mushaar u qaadanaa haddana inaan ka maqannahay oo aan meel iska joogno sax ma aha xildhibaan maxaa caddaynaya inay jasiiro iska fadhiyaan oo ay waxay ku doodaan in maaragtay shacabka dhulkooda laga qaatay inay maaragtay u hadlaan oo u cadaalad doontaan halkaan ha imaadaan aragtidooda ha dhiibtaan waxa ay sheegayaan iyo waxa ay ka doodaan inta la imaadaan maahana jasiiro inay meel inta ka furtaan boor gadaal ka dhigsadaan ee maalin ilaahay keen iska qayliyaan oo shaqadooda imaanin canshuurtana qaataan lacagahana u soo dhacdo almeyna lacagaha ay qaataan dadka ha siiyaan xildhibaanadaas waxay ku doodayaan in dalku uusan baarlamaan lahayn islamarkaana ayagii ay ka shaqaynayaan waxaana shaqadooda ahayn baarlamaan ma ahan waa ma lahana dheheen waa fahmo waa kula qaatay maalin horena waa sheegay maanta haddii loo tago la dhow gurigooda wax laga baaraana xasaanadaan leenahay xildhibaanaanay ku leeyihiin mushaarka waa qaadanayeen 3 sano iyo bari u dhaceysay joogtay ugu dhacdaa soo ma celiyaan mana imaadaan baarlamaanka 2 sano iyo 3 sano waa ka maqayn u garaan ayaga dhan 2 jeer ay imaadeen aan u maleynaa inta doorashada jirtay iyo mar kale mar imaadeen dastuurka la furay mar kale uma haayo fasaxna ma qaataan waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada canshuurta aad maaragtay shacabka Soomaaliyeed mushaar ahaanta uga qaadataan shaqadooda u soo xaadira oo sharciyadooda ka shaqeeya su'aashaada kala gal jirto qeeldaan ka soo yeeraysa aqalka sare in sanataro ay dhahayaan amniga Muqdisho ma aha mid la isku haleyn karo taas maxaa kaga jawaabaysaa senatarko ahaa sanataro ka tirsan aqalka sare aniga qofka magaalada Muqdisho ku dhashay ku soo koray ku wax bartay yaa wax laga weydii karaa amniga magaalada Muqdisho amnigan wuxuu jiray ayadoo meedadka laga tilaabsanayo yaa la joogay nabada la joogaa dhalinyarada waa aragteen ayagoo ciyaaro fiirsanayo soo dhameystiran wax caqabada ama wax cabsiya ee dareemayaan aysan jirin soo marka nin gobol laga soo doortay ee inta soo baxay hababa soo dhahay meel inta yimid ee mikrafoon helay ee Muqdisho amni ma aha dhahay ummadda Soomaaliyeed wax laga weydina Muqdisho waa amni waa lagu raaxaystaa nabadana lagu joogaa nabadana lagu wada joogi doonaa hadii Ilaahay raado su'aal kale ma qabtaan